kani waa Somlin Gig Fiber dhamaystirka farxadda guriga iyo goobta shaqada waa xariga fiber optic waxa uu araa sareeya dalkeena hadda soo dalbo soo gelintu waa bilaash oo hel in ka badan farxadaada هاي إيه ورساتها في عن سيتا هو في عنها هي ساك حقي كل هذا هاي إسلام درسك حنصنا سوبو قناة هاي قراءة كوسو سمينه ما يريرك عشاك صعبة لا حبسو يلقوا أنا ده هاي ما بكو في رسنة هاي وحنا عن جد هاي عادي هي وحنا مجران هاي وحي قرن اسمها جيران أو سيداء هاي علشان أورانك وذا هاي أنا بشر أستاذ الحمد لله إلا هذا ما تسكلي هاي وهي ناس كنت حضرتها وعفتي من لنا أعنتها اسئلة عليه هاي أرينا رب إن أكو شيء أمد بدن كأقرنا هاي بسم الله بير محكمة قبل سنة هاي بس إنك حاجنا أبو فرحان مركي ومقفق بصدق لعكتاك بحناي وحائسي أقاسمي هورا إنتي فيق وناك داهر بالسي اسكما كيسينين هاي وحو إيصاب نكتم إنو قبصر يقرصد يا ما حاسمة يسمرك هاي waa ku qasbanaa inaan sameeyo waan ka ogolaaday laakiin markii labaad ee aboo magafa qabsaday aan lacagta weydiistay wuuna ii diiday inuu isiiyo حاسمة يسمرك هو ifuro hooyo wuxuun iga duuba muuqaal rakaata ah aniga iyo gabdho kale oo TV ka wada shaqeyno waxaan u noqonay dhibanayaal markii dambe waxaa go'aansanay inaan maxkamad saarno oo kiisku oogno ugu dambeyn hooyo waa guulaysanay نا أورك يا له حفصة هاي شعيب عيب maxaa ka wada saabir أجاسمي ده نوع magacaas xasuus qaldan igu leeyahay mana laga yaabo inaan kugu wacaa xabiibi حفصة waxaan kugu wacay inaan ka wada hadlo arrinta guurkeena waa oomanta misteri xitaa masugu waasiinta meeshaan ka baxeen xafsada u fikiraysa maaha xafs labadan guurkeena ma dhici karo sababtoo adi waxaa tahay qof uur lehna meher ma qabto laakiin taas micnaheedu ma hanayso waxba dhicin anisaan hore kaaga ballan qaaday waxaan diyaar u ah inaan farxaddaada ilaaliyo sharaftaadana badbaadiyo xafs waxaan aabbo u noqon doonaa cunigaas calooshaada ku jiro weliba aabbo wanaagsan oo mas-uuliyaddiisa ka soo baxo xilli kasto xaalad kastoo jirto waxay bisadooda nagu dhici doonaan waxaan dhiganaynaa aroos weyn oo dadka dhan wada og yihiin laakiin aan ahayn mid sax ah oon adiga sharafka ku badbaadinaa
laakiin waxaan marnaba dhici doonin ani adig inaan gogol wadaagno. naa ii jawaab urkayaa leh. hooyo saabir هاي waxba welwelin baaritaankan DNA test kadib wax walba dhamaan doonaa. أصلي البدر كطلعته والجو daal shaqo ma dareemaysaa mise dhib kalaa jiro? arrinta wayaan ka walwalsanaa. xitaa haddii DNA-ga la qaaday weli ma ka walwalaysaa? DNA waa rajada kaliya aan leenahay. xafso hooyo aabba weydiisha sax waa, laakiin kiiskan sidee dadkan u dhigayaan maahan. hooyo iyadoo isdifaacaysay aabba dishi. oo sidee ah? dacwad oguhu wuu soo jeedin karaa doodiisa. mahadsanid mudana garsoore. mudana garsoore waxaan halkan ka caddeynayaa in 15 bishii hore ay 3 gabdhood kiiska hortiin yaala ay u gudbiyeen ayna u tageen sarkaalad qaabilsan arrimaha jinsiga gobolka Banaadir. waxayna u gudbiyeen kiiskan hortaada yaala oo ah eedeysana daahir dambiga uu geystay. isla maalinkaas waxay ciidanka u gudbiyeen cadeymihii ay haayeen, balse waxaa nasiib daro ah in xeer ilaalinta loo soo gudbiyey ribood oo keliya, laakiin la hareer mariyey cadeymihii isugu jira cod iyo muuqaal intaba. mudane garsoore, kadib markii ay gabdhaha soo eedeeyeen eedeysanaha ciidankana ay xireen, gabdhihii mudnaanta ma aysan siinin cadeymihii oo waxay isku haleynayeen ama isku haleynta sharciga ayay wax walba oo cadeyna gacantooda ugu baxday intaba. dood ayaan ka qabaa mudan garsoore. maxkamaddu way ku furan tahay. waa maasantahay mudana garsoore. waxaan filayaa inaysan habooneen in maxkamaddu waqti kulmiso malo iyo in sumcadda ciidanka booliska meel looga dhaco. daqiiqado ka hor waxaan halkan su'aalo ku weydiinay taliye barkhad leh oo ahaa hoggaanka ciidanka booliska oo sida tooska ah kiiskan gacanta ugu hayay. waxaan rajaynayaa inay ku qanacday hanaanka uu u maray dacwaddan. mudana garsoore, annagoo ka faa'iidaysanayna waqtigeena qaaliga ee maxkamadna siisay, haddii ay jiraan wax cadeyna oo laga hayo eedeysana daahir, waxaan codsan lahaa in maxkamad la horkeeno. ma jirtaa wax caddayn ah oo aad la wadaagi karta maxkamadda oo sheegaya in kiiska 3 gabdhood ee aad wakiilka u tahay la musuqmaasuqay? mahadsanid mudana garsoore. mudana garsoore, hadda wax cadeyna gacanta kuma hayno.
kiiskan maalmo kooban ayuu isku beddelay waxaa jiro musuqmaasuq badan iyo isdabamarin badan oo kiiskan quseeyo mudane garsoore waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsan lahaa inayna siiso fursad aan ku keenno caddeymihii saxda ahaa maxkamaddu way ku furan tahay. mudane garsoore haddaysan jirin wax caddeena ay hayso dacwad oogaha waxaan rabaa inaad fursad ii siiso inaan xafse maxamuud hortaada soo istaajiyo si aan su'aalo u weydiiyo waad u fasaxan tahay in aad su'aalahaaga weydiiso. xafse maxamuud waxaan kaa rabaa inaad ii sheegto kiiska aad daahir ku soo ogteen ma kiis sax ah baa mise waa mid been abuur ah ma jirto wax dembi ah oo daahir naga gale maxay ahayd danta aad kala heydeen inaad daahir dacwaysaan waxaa rabnay inuu baneeyo booska agaasimaha tv-ga daahir sabab xabso waad u fasaxan tahay. mudane garsoore fiiri xaaladda ay ku sugan tahay wejigeeda waxaad ka dheehan kartaa didid fara badan gacmaheeda aad bay u jaraynayaan waxay u eg tahay qof aad loo soo qasbay kiiskaana go'aan looguma gaari karo ayadoo aanan la helin caddeymihii saxda ahaa li'anna qofka waxay u eg tahay qof aad loo soo qasbay waad sii wadan kartaa. haye xabso maxaa idinku kalifay inaad ka shaqaysaan in daahir shaqada laga eriyo saddexdeen waxaa ahayn saaxiib aad u dhow saabir oo ah agaasimaha hadda haya tv-ga waxaa rabnay inuu booska baneeyo agaasimaha daahir sidaasna uu ku buuxiyey saabir mahadsanid xabso waa fariisan kartaa mudane garsoore waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in eedaysana daahir ee cadaaladda u soo dhiciso maadaama ay caddahay beenta lagu soo eedeeyey iyo sababta loogu soo eedeeyey waad u fasaxan tahay. mudane garsoore waxaa maxkamadda nagula sugan milkiilayaasha tv-ga wanaagga waxaan jeclaan lahaa inaan weydiino sababtay daahir shaqada uga ceeriyeen waad u fasaxan tahay in aad su'aalahaaga weydiiso. ma ii sheegi kartaa magacaaga xirsi ciidid cali shaqadaada waxaan ahay guddoomiyaha guud ee telefishinka wanaag manoo sheegi kartaa sababaha aad shaqada uga ceriseen agaasimihii hore ee tv-ga waa mahadsantahay abuukaate guddoomiyaha maxkamadda garsoorayaasha dhinacyada dacwadda iyo maxkamadda sharaf kaleba waa ay mahadsan yihiin sababaha aan shaqada uga hakinay ama uga joojinay daahir waxa ay la xidhiirtay xaalad dhaqaale yari oo tv-ga ayaa dhaqaal ahaan hoos u dhacayay waa mahadsantahay oo fariisan kartaa mudane garsoor waxaa rajaynayaa in maxkamadda ay u caddahay in wax xiriir ay lahayn in daahir shaqada laga soo celiyo uu saabirna helo booska jagadaasi ah waxaan maxkamadda ka codsanayaa in aysan go'aan ku gaarin caddeemo iyo musuqmaasuq loo keenay iyo qof la soo qasbay waad mahadsan tihiin. maxkamaddu waxay aadaysaa wadatashi lagu qiimaynayo dhammaan doodihii
iyo caddaymihii aad maxkamadda u soo gudbiseen waxaan 2 saacadood kadib isugu soo laaban doonnaa go'aanka maxkamadda haddana maxkamaddu way xihan tahay بسم الله waxaan rabaa maanta inaan warbixin idinka siiyo kiiskii muddooyinkan soo socday ee ku saabsanaa xadgudub uu u geystay daahir 3 gabdhood oo wariyaal ah kaasoo ugu dambeyn maxkamadda ay go'aan ka gaartay booliisku adeegsanaya xirfadooda dabagal ay waxay ku guuleysteen in ay dib u baaris ku sameeyaan taasoo boolisku suurgelisay in ay soo ogaadaan in kiisku uu ahaa mid been abuur ah taasoo suurgelisay in ay eedaysanaha uu xorriyadiisa dib u helo 3 gabdhoodna xabsiga la dhigo waa mahadsantihiin mudane soo lagama yaabo inay jiraan cadaymo loo soo gudbiyay booliska balse aan gaarin maxkamadda xogta aan maanta idin siin karo waa intaas oo kale wixii su'aalaha iyo jawaabahooda mar kale waana mahadsantihiin اسكولنا كم هذا بدأ حقداي أنا كنت في وشص شاح لي بديه أيوة بديت في عن ساتايم يعني ما waxaan ismaysaa inaa sharafteenu miya waxaa igaaga fuday inaa xabsigaan iskaga xirnaado marnaba lagama yaabo inaan 50-50 geliyo sharafteeda taar ma kula socdo ninkaas wuxuu gacanta ku hayaa nolosheeda oo dhan si kama gudaheeda ku weyn lahaa sharafteeda intaa hadalkiisa raaci lahayn way maxay la tashanay ma intaas wada kale ka fiican ahaa sidaas darteeda kaala tashan waayo saabir hal tallaabo qalad haddaa qaadi lahaa noloshii waa u dhammaan lahayd riski intaas la-eg ma qaadan karin sharaf darada igu dhici lahayd ma qiyaasi kartaa saabir hooyaday keligay carruur iga haysataa sidee noqon lahayd hadday aragta gabadha keliya haysato oo xumaanteeda meel walba la faafinaayo gabaraxaasaa ahay sidee noqon lahayd sharafta qoyskeyga ninkayga wajigo magaalada ka hortegi lahaa saabir ani aadaa kuu jeclahay dhibaataa filinaynaa lugaha la galay noloshaan ku fikiraa inaan wada qaadano iyo xaaladdaa ku jira aaday u kala fog yihiin intaan ka badan kuma dhibi karin maxaa la kala sheekeynaysaa haa waa runteeda mar walba ay garab taagneed xiliyadii igu adkaa nolosheeda ay garab qabatay ilaa ay hadda xabsiga igu imaatay
waxaa taa nasiib oo alle ii soo dire abaalkaaga marna ma gudi kar saabir intaa sharaftaada wax u dhimi lahaa waxaa lii qaatay inaan halkaa iskaga xirnaado sug macant inay xaaskiisa abaal isku galaan tanna waa waajib aan isku leenahay adiga gabdhahaasna xabsigan kuma sii jiri doontaan waana ballan daahir iyo agaariis inaan soo fiiraya adiga gabdhahaas inta fas kala foqa adigna waqtigaa ugu dhaqan soo socda agaasime axaw soo dhow agaasime waxaan doonayay inaan kula kulmo waxaan rabaa arrin inaan kuu sheego haddii aad waqti haysatid dhima lahaa 3 daqiiqo kadib xafiiska igu imow oo hadleynaa diyaar waa agaasime هاي ستها ما في عنا هاي ستها هذه ما في عنا هاي هاي أنا سكورن أنا شو في عين هاي هذا السنة ما حسين نفسي جلسة هاي حسمينا هاي محكمة حكون وردية الله نحذوينا الله نحذوينا أنا سحروا لنا ندرس مصاري هاي ذي الربا هاي ذي الربا أفك بحمل الله هاي أنا سمحوا سوودي ويسي hooyo haddii aan soo wada anas hadhow guriga kuma noqonayo hooyaday meeshii joogtaan rabaa ayay iska baxo ilaa saas darteed aan soo wadi waayo hooyo sax waa wallaahi hooyo ninka xabsigaan idin keenay aad u xirantihiin hooyo meeshuu joogo hooyo ii sheeg jilbihiisa aan qabsaday siduu cafis idinkugu fidiyey hooyo may hooyo taas ma dhacaysa ninkaas muu tegaysa hooyo aniga qof xanuunsanaa ayaa ogtaa hooyo wiilkaagoo yarna waa haaya hooyo reerkana aduu kugu tiirsana gurigiina wax beelo ma haayo hooyo ilaahay meeshaan halkaasoo samata bixiy hooyo waxba ha fikirin hooyo inaad fikirta kuuguma sheegin hooyo hooyo ilaahay meeshaan halkaasoo samata bixiy waana kuu duceynaa ilaahan kuu barya waxaan helay dukumentiyo caddeynayo in la maskumaasqay lacagihii ugu badnaa ee dakhliga canshuuraha waxaan doonayaa inaan dabagalo isdul taago arrintaas sidee u aragtaa mays kiis aad u xooganaa gacanta ku haysaa waxaan rajinaa waddooyinka umarled inay ku cadyihiin aad iyo aad agaasime anigii tiimkayga ayaa arrintaas ka shaqeynay wayna noo caddahay waddada aan u mareyno maasha allah waa si wanaagsan maadaama aad tahay qof dhibaatooyin badan oo dalkan ka jira bannaanka soo dhig ka waran haddii aan kaa codsaday inaad garab naga siiso kiiskeena gabdheena xiran oo howlaha kalena iska sii wadaysid soo xanaagsan kale subax lamid amal xilka lagu magacaabo hoggaanka baarista gobolka Banaadir waa mas'uuliyad adag waana markii ugu horeysay loo magacaabo qof dumar ah waana ku kalsoonahay inaad shaqadaada si wanaagsan uga soo bixi doonto waa taliye shaqadaadan cusub waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo karti dheeraad ah iyo inaad la timaado qorshe wanaagsan diyaar waa taliye mahadsanid waxaan halkaan kugu imaad inaan idiin sheego inaan kaliya ka shaqeynay sidaan xabsi idinkaga soo saari lahaa balse aan ka fikirin nolosha qoysaska ku tiirsanaa shaqadiina waxaan la kulmay mas-uuliyiinta tv-ga waxaan u sheegay sida wax u dhaceen waynay la qaateen waxaan isku afgaranay wixii maanta laga bilaabo intaa meeshan ku jirtaan inaad toos u qaadataan mushaarkiina maasha allah sidoo kale waxaan isla afgaranay oo isku afgaranay inaad shaqadiina sii haysataan maalinka xabsigan ka soo baxdana aad toos shaqada u iman kartaan waa arrin ugu farxmadaas mahadsanid agaasime saabir runtii arrintan aada ugu walwalsanaa ma aqoonin nolosha hooyo iyo wiilkayga say noqon lahayd intaasoo kaliya maaha zamzam waxaan sidoo kale isku afgaranay in naga caawiyaan qarashaadka ku bixi lahaa maxkamadda marka aan helna caddeemo dhammaystiran saabir kiiska hadda meel fiican oo noo joogaa mar hadday dnaada noo soo baxdana
maxkamad buwaagteeda la laaban doontaa kiiskaasna uu noo xiran yahay dilka hooyo ay aabba dishana waxaan ku caddaynaynaa inuu yahay difaacu nafsi adiga iyo hooyana mar dhowa kulmi doontiin marka arrintaas waa inaan u dabaaldegnaa abukaat aad u mahadsantahay hadda waxay ugu taagan arrin kale xaaska aan qabay iyo laba gabar oo ay telefishinka wada shaqeeyaan haddana xiran waxaan loo yeestaan ka been abuurteen agaasimihii hore telefishinka ta hadda ugu darna waxay tahay way xukumiyihiin 3 sano lagu xukumi rabaa waa ka xumahay saabir dhibaatooyin kala duwan ee ku haysta balse hadda hooyada ay geeri iyo nolol u dhaxayso marka hore ayadan isku dayaynaa inaan badbaadino kadib ayaan fiirin doonaa kiiska gabdhaha magacayga waa Dr. Haashim Cabdalla waxaan ku takhasusay cilmiga forensiga oo ah cilmi ku sahlaya in la baaro dambiyada iyadoo waliba la adeegsanayo cilmiga sayniska waxaan gudoomiye u ahaa guddiga ay maxkamaddu u xil saartay baaritaanka natiijada DNA-da ee xiriirka waalidnimo ee ka dhaxeeya Asli Maxamuud Shaaciye iyo Saabir Ibraahim Kaynaan tijaabadani waxaa maray Asli Maxamuud Shaaciye oo 49 sano jir ah iyo Saabir Ibraahim Kaynaan oo 25 sano jir ah labadoodiba waxa laga qaaday dhacaamo 14 cisho ka hor gabagabada natiijadoodana waxa ay noqotay sida soo socota indiska guud ee hooyanimo waa 0.01 taas oo micno ahaan la mid ah in uusan ka dhaxayn wax xiriir waalidnimo ah labada shakhsi ee maray baaritaankaas sidaa darteed warqadani waxay caddayn u tahay in Asli Maxamuud Shaaciye aysan ahayn hooyada dhashay Saabir Ibraahim Kaynaan dhinacyada ay dacwadu ka dhaxayso waxay maxkamadda ka helayaan koobi caddaynta natiijada xilli walba waad mahadsantihiin natiijadiina waa taas wadana garsoore ma waxaa jira cid dood ka qabta natiijada DNA-ga ee maxkamadda lagu hor akhriyay maya garsoore waa wax dooda ma qabno waa hagaag haddii aanay jirin cid dood ka qabta natiijada DNA-ga ilaa berrito oo ay maxkamaddu ka shaacin doonto go'aankeeda maxkamaddu way xiran tahay amal waxaa rabaa inaad furto kiiskii dabagalka daroogada baryahan magaalada waxaa ku soo badanaya dad dhibano u ah daroogada diyaar waa talay dibna waa u furaa laakiin waxaa rabaa dheel cusub inaan dheelno dheesha hor dheelka duwan waa maxay qorshahaaga waxaan howlgelinaynaa dharcad oo dabagalaya dadka maandooriyaha dalka keena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxkamadda gobolka ugu horeyn waxaan rabaa in aan dhammaantiin idinkaga mahadceliyo dulqaadkii aad muujiseen muddadii ay socotay dhageysiga maxkamadda waxaan rabaa in aan isdul taago dhammaan
caddaymaha la xidhiira kiiska maxkamadda loo soo gudbiyey. asli maxamuud waxaa lagu soo eedeeyey in ay geysatay dilka 2 qof oo kala ah nin iyo xaaskiis iyo afduubka wiil ay dhaleen. dhacdadaas oo ka dhacday tuulada Yalho oo wax yar u jirta Boosaaso 25 sano ka hor. haddaba maxkamaddu markii ay dhageysatay dooda qareennada dhinacyada, markii ay aragtay markhaatiyada iyo caddaymaha loo soo gudbiyey oo kala ahaa markhaati goobjoog ah iyo caddaynta DNA, markii ay aragtay dukumentiyada caafimaad ee qeexaya cidda dhashay wiilka lagu muransan yahay ee Saabir Ibrahim Kaynaan, iyo markii ay aragtay warqadda caddaynta caafimaad ee qeexaysa in asli aanay ahayn qof ubad dhali kara oo ay weheliso muuqaalka caddaynta dhakhaatiirta, waxaa maxkamadda u caddaatay in asli maxamuud ina Sareeda Xarbi Muumin 49 jir ah ku dhalatay Beledweyne ay tahay dambiile geysatay dambiga lagu soo eedeeyey. waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. وبالله توفيق. محكمتنا waa xiran tahay.